diyuurado badan taasoo ka wareejin lahayd inay isticmaalaan hawada Soomaaliya. Hawada Soomaaliya dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay in qalab casri la geeyay magaalada Hargeysa ee gobolada waqooyi kuwaas oo khalkhal lagu gelinay diyaaradaha dulmara goboladaasi. War-saxaafada ka soo baxay dowladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan hay'adda duulista rayidka ayaa waxaa lagu yiri laga soo bilaabo 11 Febraayo 2024 waxaa dhacay xadgudubyo heerar kala duwan leh kuwaasoo ay ku kacayaan maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee Somaliland taas oo ay ku carqaladaynayaan dadka ay diyaaraduhu isticmaalaan ee dulmara qayb ka mid ah hawada gobolada waqooyi ee Soomaaliya. ficiladan ayaa ka soo horjeeda shuruucda dalka u yaala kuwaas oo caalamiga ah. falkan waxay khatar gelinaysaa diyaaradaha iyo rakaabka isticmaalaya khadka dulmara qayb ka mid ah gobolada waqooyi ee Somaliland ee dalka. iyadoo aynay jiraan caqabadahan ay dowladda Soomaaliya waxa ay qaadatay tallaabooyin lagu xaqiijinayo badqabka duulimaadada dulmara qayb ka mid ah gobolada waqooyi ee dalka kuwaas oo kala ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay soo saartay war-saxaafadeed taariikhda markay ahayd 13 Febraayo 2024 taas ay bulshada Soomaaliyeed iyo caalamkaba lagu xaqiijinayo badqabka duulimaadada hawada ee Soomaaliya. dowladda Soomaaliya mar waliba waxa ay digniino u diraysaa maamulka gobolada waqooyi ee Soomaaliya ee Somaliland si ay uga waantoobaan faldambiyeedyadaasi ay ku kacayaan. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyadoo tixgelinaysa shuruucda duulimaadada adduunka ayay soo saartay wargelino kuwaas oo lala wadaagayo dhammaan caalamka iyo hay'adaha ay khusayso laguna xaqiijinayo in duulimaadada ay si badqab ah iyo amni ah ay ku maraan hawada goboladaasi iyadoo aynan wax saameyn ah ku yeelan doonin carqaladaynta adeega ee duulimaadada hawada. iyadoo ay jiraan digniinahaasi iyo tallaabooyin la qaaday ayayna maamulka gobolada waqooyi ee Somaliland sii wadaan faldambiyeedyadaasi ka dhanka shuruucda caalamiga ah ee duulimaadada. haddaba iyadoo ay intaasi ay jirto dowladda Soomaaliya waxa ay ka baaqsatay in ay qaado tallaabooyin taasi oo kuwan ka adag iyadoona u tuuraysa shacabka Soomaaliyeed ee leh deegaanadaasi kuna nool iyo cidda isticmaalayaasha adeegyada duulimaadada rayidka ah. dowladda Soomaaliya waxa ay dareensan tahay in carqaladayntan ay wadaan maamulka gobolada waqooyi ee Somaliland ayna ku jiraan shisheeye si ay u fushadaan danahooda gurracan ee dowladda Soomaaliya waxa ay ka digisaa in sii socoshada falkan dambiyeedka ah ay ka shaqayn doonaan. haddaba haddii ay sii socdaan tallaabooyinka faldambiyeedka ah ee lagu carqaladaynayo duulimaadada rayidka ah ee dulmara gobolada waqooyi ee dalka waxay dowladda Soomaaliya iyada oo ka xun ay ku khasbanaan doontaa in ay qaado tallaabooyin adag oo degdeg ah laguna xaqiijinayo amniga iyo badqabka duulimaadada rayidka ee Soomaaliyeed. ugu dambeyntii dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay sharciga la tiigsan doontaa cid waliba oo ku lug leh falkan gurracan ee foosha xun.